بريادهن هلا وقوم يا حوار حيل جديد وأنا يا صلاتي. Okay, so sheekadii baynu sii wadaynaa ku saabsanayd asta. Yeah, this S is very interesting. And horta ereyganan idin micnaynaya muqadaraat. Yeah, muqadaraat waxa la yidhaha waxay ahayd pre-Islamic Arabian poetry. Yeah, gabayadii mootooyinkii carabta. Yeah, ayay ku jirtay oo obviously qur-aanka de adiga ku arkaya ereyadan muqadaraat la yidhaaho. Yeah, oo ah alif mim nuun ha ta yeah sa. Basically de inagu Soomaaliyan horta magac baynu u naqaanaa Soomaali waa baynu iloobeybe waa markaa dee verse kastaba and the same letter ku bilowdid same letter ama sound yeah s hadaad ku bilowdid s baad ku dhamaynaysaa ama dhexda waa inay kaga jirtaa ma fahanteen buuggii stanza buuggii dee haldoor ee stanza baaban magaca ku maqlay oo u malaynaya I don't know what it's called but af carabi ahaan yeah waxaa la yidhaha muqadaat ما فهمتين ما مرة وحلا على the miracle وحلا على the miracles word in the Quran yeah the miraculous verses أما the إريجي the miraculous كها yeah ما فهمتين أنت وحوي basically وحلا showcase كرينا يا قفقة linguistically يا ماشو كجاري marka inagu dee xitaa dad soo xasuusto iminka astanan ka hadlayo siinley may ahayd siinley baa la wada beri soo maaha marka inagu waa Soomaaliyan wallahi alphabetki oo dhan waynu dhamaynay moogtahay alphabetki oo dhan waynu dhamaynay laakiin zida iyo setka baynan isticmaalin yaa iminka qaar baa arkaa inay isticmaalaan but it doesn't make any sense because waa sti un way yeah sometimes not sa oo kalaa loo isticmaalaa so micno saas kuma fadhido zidu yeah zidin waa idinka sheekeynaya oo soo gabagabaynaya 360 and marka dee waxyaalo badan baa jira cilmigani waa garaad dheer inaad leedahay but it's funny iminka dadka Soomaalida u talinaya ee garaada isku sheegaya ee dad wax bartay odayaal isku sheegaya ama islaamoy wallahi waa dad maskaxdii wada fadhiisatay moogtahay maskaxdii baa fadhiisatay obviously and sheek xariirka ku saabsan Saturn yeah ama raagi yeah sheek xariirka raagi and waxaa la yidhahaa raagi and markuu soo laabto he sacrifices his own children ciyaalkiisuu cunaa yeah waa waxda odayaasha iminka samaynayaan iyo dadkan dee waaweyn basically yeah oo waxa weeye sida baalka dee maska oros la idhaaho ee dabadiisa qaniinaya isagoo isku wareegsanaya ayaa ciyaalkoodii bay dib u liqayaan weird isn't it yeah because halkan ay baaleen ma fahanteen maskaxdiina way engegtay yeah marka they feel threatened by their own children haddaad suu eegtid yeah but intaasina waa inta estaynu bilaabaynaa yeah okay estamaynu sii wadnaa mise waxaan bilaabaa ziidaan dhamaynaya ziidan is not that important inagu Soomaali ahaan waynu soo dhamaynay waxan the whole alphabet yeah ilaa hadii laga hadlayo maanta u gabay and gees yeah waxa iminka dee kiniisada orthodoxa Ethiopia ku dhaqanto gees yeah the gees waa dhinac maansada ka mida weeye one side baa laga hadlayaa geeskana waynu deganahay 7 baynu deganahay yeah ziiduna 7kaasay ku saabsan tahay 7kana waynu go-aynaa because dee buurtii canfartii waa taa and erupt garaysay the volcano plateskii baa go-aya marka qaarad baa la noqonayaa waabana laga soo gaadhibe dad sii u eegtid so anyways dadkani zerona way noqonaysaa eber sheekada eber baa laga soo bilaabaya ilaa waa laga soo dhameeyey 360 degreeskii and because af carabi ahaan haddaa u fiirsatay xitaa qaar the waxay yidhaahaan the people yeah the dhawaaqay ku xidhan tahay soo maaha mar but it's not that important and ereygan setku yeah letterka setku waxay yidhahaan the Greek zita yidhaahaan zita yeah and waxay yidhahaan zayin bay ka timid af carabi maxaa la yidhaha phoeniciantii hore waa naga sheegayay phoeniciantii dadka yihiin Hebrewna iyaguna zayin bay yidhaahaan zayin yeah marka zayin af carabi ahaan zayn bay yidhaahaan zaynna waxay ku tilmaamaa magac dee wiilasha loola baxo zayn oo macnaheedu yahay qurux beauty ama grace yeah obviously beauty iyo grace gabdhaa loola baxaa wiil loolama baxo yeah waa cayn weeye basically haddaad si u eegtid yeah and in Hebrew zaynkani waa 7 zida haddaad hadda u fiirsa kana soo dhiganay waa 7 weeye waa 7 sidaasa iyo 7 sidaasa
yeah marka waxay dhahaan waxa weeyi weapon ama sword shapekeedu waxaasuu dee resemble gareeya ama u eg yahay dee waa afmiishaarnimada halkaynu ku keennay yaa qofkani waa afmiishaar xagee ka timid depends on ereyada iyo the language saad u isticmaalaysa baa lagu leeyahay waa afmiishaar bishaarna maaha dee waa weapon soo maaha yeah marka zadki waa kaa sevenkan waa kaa zaben marka saben ku noqonaynaa ilan zadki way dhamaaday sabada ayaynu finish garaynaynaa esta ma fahanteen in the next video